بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلودا وحسن شيكتي في مقالة أصل حروتها ذلك النروي. الكلمات وحنا كلن لي وأنا كقاضينا ورئيسي كلن هدي لها ود لو قلادو اللي بن سعيد آمين أو تقرنا إنسان اللي بنو شرحنا ولا هديجان كا مقالة أصل. سعيد وكسلوا وحسن شيكتي في. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت إلهي بقى مهضة يسوق كان هالكن وحن وما حد نقيا مركورة وحسن شيك تي في وهرنتي تي في عاد سو كبعية وحرنا وشغين شري إمكنا درجلين وضع وأرمها بشدة نقل الشقية ورتا آد بمهندسين iyo صديق وأهجدوميها إن وحسن شيك نيوز تي في وان دوحي وانا دي سو دوينيا marka insha Allah waan iska bilaaban doonaa aad iyo aad ma santahay xildhibaan Saciid Aamin. xildhibaan Saciid Aamin wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku kortay dalkan Norway waxaanu soo qabtay maamulo kala duwan isagoo la soo shaqeeyay arrimaha bulshada dalkan jaaliyadii halkan ee loo jiray SWD oo Somali Welfare Organization jaaliyada reer Somaliland ka soo qabtay gudoomiye ka ahaan jiray wax badan bulshada oo soo qabtay ma sha Allah. Saciid maanta maadaama uu ka tirsan yahay xisbiga shaqaalaha dalkan Norway Arbeids Partiga waxaan ka wareysan doonaa siyaasadda geedi socodka dalka xisbigooda iyo arrimaha quseeya dadka ajnabiga ama Soomaalida. waxaad nooga sheegi kartaa loo faahfaahi Saciidow. waad mahadsantahay Sadiq. horta sidaad ula socotaba anigu waxaan ka soo bilaabay xagga siyaasadda waxaan ahaa dadka samafalka ka shaqeeya ama waxa la yiraahdo free biliga organizationno badan baa ka soo shaqeeyay. organizationkii ugu weynaa ka soo shaqeeyay waxay ahayd organizationkii la oran jiray Somali Welfare Training ama SWO qofka sidoo yaqaanay oo runtii ahaa ururadii ugu weynaa waqtiga markii aan ka shaqeynayay oo ahayd waqtiyadii 2002 ilaa 2008 waxyaabo badan runtii waan ka qabanay waqtiga mar gudoomiye ku xigeen baan ahaa mar gudoomiyeen ahaa marna waxaan ahaa waxa loo yaqaan talisman ama qofka uu hadla la kulma media marka marar badan baan ka qayb galay doodo ka socda TV2ga maxaa la yiraahdaa NRK vegeeda dag bladaha yani waxaan abiisada la isku yiraahdo ma joornaalada wargeysyada waxa la isku yiraahdo waan ka qayb qaatay marka runtii halka aan anigu siyaasadda ka soo galay waa xagga weeyaan markii dambe ururada iyo xisbiyaan la kulanay xisbiyadii runtii nagu ma garanaysaa nagu dhiirigelinayay in aanu ka qayb qaadano siyaasadda waayo siyaasaddu waxa weeyaan maaha mid wax lagu khalday waa mid waxna jaangoysa waxyaabo badanna runtii qabata haddii si sax ah loogu shaqeeyo. dadka qaar siyaasiga waxay yaqaanaan nin been sheega oo ma garanaysaa wax doonaya inuu dhaco oo waxyaabo noocaas ah laakiin waxaan u maleynayaa malaha waa siyaasad meel kale ka socotay siyaasadaha halkan runtii wax weeyaan waa wax jaangooya waa wax waa qalabkii lagu isticmaalayay dhismo wadan ama magaalo ama ururba waa wixii lagu isticmaalayay horumarka lagu isticmaalayay weeyaan. marka taas ay runtii markaan soo galay markii ugu horeysay waxaan kale xisbi loo oran jiray SV oo ah xisbi bidixla runtii mar walba bidixdaan joogay markii dambe waxaan uga soo wareegay xisbiga shaqaalaha xildhibaan golo degaan iyo xildhibaan biidilka aba waan ka noqday. iminka waxaan joogaa magaalada haddii alla yiraahdo inkastoo magaaladii aanan haysan oo xisbigayagii lagala wareegay oo xisbiyada kala midigtu ay la wareegeen laakiin haddana waan la joognaa oo waan la shaqeynaa oo waan la soconaa bal siyaasadoodu siday wax ka bedelayaan iyo waxyaabaha ay khaladaadka sameynayeen inkastoo majority-ga yihiin haddana waan uga dignaa haddii aanu aragno khaladaad iyagoo wada
marka weli xisbigii shaqaalaha ayaan ku jiraa dee shaqada caadiga ah aan haystaana waxa weeyaan waxaan aan ka tirsanahay oo aan u shaqeeyaa Oslo Commune aan u shaqeeyaa xafiiska NAF ayaan joogaa ama xafiiska shaqada ayaa la oran karaa iyo dadka magaranaysa u baahan caawimada ayaan ka shaqeeyaa marka taana ilaa iyo team leader iyo dealing leader ba waan noqday intii aan joogay 8 sano aan joogaa halkaa marka alxamdulillah halkaasaan joogaa weli Oslo Commune aan u shaqeeyaa oo shaqadeeda ay tahay faaskii marka waxyaabahan siyaasadda iyo waxaan waa wax uun hobby ah waa wax magaranaysa aan waday iyo arrintan kale voluntary aan ku shaqeynay ururada kala soo shaqeynay ama jaaliyada noqoto arrimaha bulshada runtii in badan aan ka shaqeynay marka muddo 15 sano ka badan ayaan waxaan ku soo dhex jiray hadaan 20 ba ku dhaweey marka anigoo yarna waan bilaabay marka alxamdulillah sidaad u sheegtay sadeeq wax weeyaan anigoo nin dhalinyaro baan halkan imi I think 16 jir baan ahaa markaan wadankeeni maantana nin weyn baan ahay marka dadkii halkan Oslo ku koray ayaan ahay wax ka bartay heer jaamacadeed ka gaaray markii dambana shaqo ka qabtay oo shaqooyinka galay ayaan noqday alxamdulillah marka waa muhiim qofku inuu society-giisii ama bulshadiisii wax ku soo celiyo mar walba aniga waxa iga goonayd sideen wax ugu celiyaa anigoo aan magaranaysaa wax lacag ama wax ka helin waqtiyada qaar waxaan xasuustaa aan ka shaqeynayay arrimaha voluntary-ga oo inta shaqadayda caadiga ka imaado anigoo nin family ah oo caruur iyo xaas bale haddana galabtii ku soo rawaxa meel arrin voluntary ka socoto oo gurigeygaba aan ku rawaxina ku soo rawaxa si aan shaqooyinkan u dhameeyo gelinka dambe uga shaqeeyo waxyaabo badan baa xitaa kaga bixi jira waqtiga ma garanaysaa in weekend-ka u naqaano iyadana oo aan markaa iyadana waqti badan baa halka iga bixi jiray alxamdulillah laakiin anigu waxaan mar walba qof ku faraxsan baan ahaa arrimaha aan qabanayay waayo qof dadka caawinaya isagana caawimo xagga min Allah uga imanaysa ayaan aaminsanaa ilaa yaraantaydaba marka arrinta voluntary-ga aad baan ilaa hadda ku jiraa intaasoo sanana waan ku soo jiray haddii aynu u noqono markaa maxaa la yidhaahdaa haddaynu u noqono arrinta siyaasadda ku wajahan ajaanibka iyo Soomaalidaba oo dee Soomaalida qayb ajaanibka ka mid ay noqonayaan marka wadankan la joogo horta siyaasadda xisbiga shaqaaluhu waxa weeyaan waa bidixda ama waa social ka waxa loo yaqaan socialist baa loo yaqaan yani waa dhinaca bidixda waana runtii dad u jajaban dadka ajaanibka oo u hadlaya weeyaan wixii ay ku caawin karayaanna ku caawiya weeyaan xisbigaygu sidaad ula socotaba sadeeq wuxuu ahaa xisbiga ugu weyn ugu taariikhda dheer leh wadanka Norway waxaanu ku aasaasmay dadkii shaqaalaha ahaa waqtiyada 100 sano ka hor organize gareeyay ayaa samaystay xisbiga shaqaalaha furtay oo markaa urur ahaan ku bilaabay markii dambena wuxuu isu bedelay movement baa jiray movementkaas wuxuu isu bedeleen inuu noqdo xisbi ay uu noqdo taariikh weyn buuna ku leeyahay wadanka prime ministerada ugu badan wadanka soo maray xisbigan ay ka yimaadeen inkastoo xisbiyada kalena ay yeesheen prime minister ama waxaan loo yaqaano ra'iisul wasaare in Soomaaliya ku niraahna waayo waa parliamentary wadanka Norway marka arrimaha jaanibka iyo Soomaalida runtii waxay aad runtii looga hadlaa integrationka yani isdhexgalka waxa laga hadlaa dadka halkan ku koray ama dadka halkan yimi sidii Norway ay ula qabsan lahaayeen baa laga hadlaa qofku markuu cusub yahay waxa la isku dayaa in afka la baro waxa la isku dayaa inuu la qabsado wadanka waxa la isku dayaa in course loo diro shaqadu sideedaba runtii waa iska adag tahay wadankan oo shaqooyinku way jiraan laakiin maadaama la isku xirayo shuruudo badan ama craft waxa lagu dhaafay Norwegian ayaa waxa keentaa marmar dhibaato ku keenta dadka ajaanibka oo Soomaaliduna ku jiraan waayo markaad shaqo meel u tagayso xitaa shaqooyinka yaryar wadankan waxa aad la isugu xiraa waraaqado iyo inaad tahay qof experience ama xirfad dan magaranaysa soo maray oo waxaan hore u soo waayay araga oo hore u soo maray ayaa marmar la isku xiraa marka taasi waxay keenaysaa dad badan inay shaqooyinkii ay runtii qaban karayeen oo aanay warqado haysan ay waayaan baa dhici karta marmar qofka waxa shaqada loogu diidaa waxa dhici karta
inay tahay waddankan weli u bislayn waxyaabaha qaar oo ah magac qof ajaanib oo doonaya inuu meel leader ka noqdo ama magac qof ajaanib oo shaqo aad u qurux badan doonaya inuu qabsado isaga laftigiisa marmar waxay ku keentaa caqabad oo magaciisa dad badan oo magacyada loogu diiday maadaama magacii muslim yahay ama magac ajaanib yahayba muslimka oo qura maaha magac ajaanib uu yahay dad badan baa loogu diiday marka inta badan CV-ga la dhiibo qofka dee lama garanayo magac ajaanib baa la arkayaa waxaa laga yaabaa qof kale oo kala magactiina waddanka u dhashay inuu shaqadii helaa dhici karta waxyaabahaas oo runtii ku xidhmo waxaan la yidhaha discriminationka ama cunsurinimada ama discriminating sida afnorigin-ka lagu yidhaha waxa weeyaan waxay sameeyaan in kala fogeyn bulshada ay sameeyaan marka xisbiga iyagu ka soo horjeedaa waxaan inta badan ka hadalaa shaqada inaan discrimination lagu samayn dadka waxaan ka hadalaa qofka inaan la iska eriyi karin uu nidaam loo soo maro waxyaabaha noocaas oo adkeeya shuruudaha shaqada qofka lagaga eriyayo waanu soo saaray sharciyadaasina way jiraan xisbiga shaqaaluhu wuxuu sameeyaa inta badan inuu xoogga saaro in iyadana la kobciyo ururada ajaanibka marmar xisbiyada midigta waxay isku dayaan inay ka yareeyaan dhaqaalaha laakiin annagu waxaan mar walba naga go-an ururada in ay ama jaaliyad ha u samaysnaadaan ama ururba haadaane in lacagta loo kordhiyo ayaanu anagu aaminsannahay waayo waa meelaha qura ee laga samayn karo integrationka waxyaabaha kale ee xisbigayga lagu xasuusto waxaa ka mid ah shaqooyinka dhalinyarada imika loo diray waqtigan samarkeenu ku jiro oo la yidhaahdo samaryo waxaa soo saaray xisbiga shaqaalaha soo saaray maadaama imika waddankeena wuxuu isu bedelay berigii hore dadka dhalinyarada ahaa waan xasuustaa markaan dhalinyarada ahaa qofka 13 jir buu ku shaqayn jiray 14 jir maanta ma arkaysid ilmo yaro 15 jir ama 20 oo shaqaynaya waayo waxa isbedelay nidaamkii beriga waxyaabaha ka shaqayn jireen dhalinyarada waxa ka mid ahaa waxyaabahan wargeyska oo kala warqad buu ku iman jiray imika waa digital warqad buu ku iman jiray marka vegeeda iyo dark bladaha after bostonta warqadahaas oo jaraydka waxa la yiraahdaa ayaa la dhigi jiray boostooyinka lagu guri jiray oo guryaha la tagi jiray oo la dhigi jiray marka shaqooyinka dhalinyaradu ka shaqayn jireen waliba gelinka dambe iyo weekendadiiba aad uga shaqayn jireen habeenkii dadka waaweyn baa loo ogolaa qof dhalinyaro looma ogolay marka waxyaabaha ka shaqayn jiray waxaa ka mid ahaa dukaamadii xitaa imika laftigoodii qofka waxay ku oranayaan 18 miyaad gaadhay McDonald's iyo meelaha restaurantada yaryar ee laga shaqayn jirayna iyaguna sidoo kale waxay soo saareen sharci 18 marka ilmihii 15 ilaa 18 gaari 3 sano waxaa laga yaabaa shaqooyinku ku adkaadaan waayo waxa isbedelay nidaamkii waddanka isbedelay marka sidaa awgeed arbay badhigu isagoo arrinta ka soo horjeeda waa arrinta runtii la tacaalaya wuxuu soo saaray waxa la yiraahdo summary marka iminka haddaad aragtaan dhalinyaro looga yeedhay waa tan magaaladu ah Biideelo oo waxa la sameeyaa marka halkaas ayaa laga qaaday interview shaqada lagu siiyaa kulli wax laga yaabaa kulligood inaanay wada heli karin laakiin waxa la isku dayayaa kuwii sanadkii hore aan helin inay sanadkan helaan marka carruurtu hadday sanad shaqaad beelaan samariyobka sanadka dambe helayaan marka waa shaqo runtii aan aad uga soo shaqeynay horena u socota la iskuna wada raacsan yahay runtii ilaa hadda arrimaha kale ku saabsan siyaasadda ajaanibka iyo Soomaalida soo dhexgalayso waddanka u dejisan waxaa ka mid ah in xagga iskuulada laga caawiyo dhalinyarada ama dadka ajaanibka ah oo runtii waxa jira kalaasyo gooniya oo lagu caawiyo baa jira leksiyal baa jira ay ka dambayso ururka maxaa la yiraahdaa xisbigeedu ka dambeeyo oo iskuulada runtii aad baan uga shaqeynay wax badan baan ka qabanay waxa jira macallimiin gooniya oo runtii ardayda xitaa team u saara oo qofku hadduu xisaabta ku yeeriyahay ku adag tahay team ahaan loo saaro classka laga saaro dib loogu dhigo baa jirta classka in laga caawiyo baa jirta oo macallin dheeraada loogu daro oo assistant oo wixii u fudaydiya ardayga marka ardayda ilaa ay classka tobnaad gaarayaan aad baa loola socdaa halkaa arrinta kale ee runtii ajaanibkii siyaasadda waxa ka qabanaysa waxa weeyaan arrimahan carruurta laga qaadanayo dadka runtii waxaad moodaa in dadku ay moodayaan in xisbiga shaqaaluhu wato maaha arrintaas sax maaha waxa weeyaan sharciga waddankan u deganay arrinta carruurta la qaadanayo waxa u yaallaa waddanka u yaallaa marka kaasunba marba dowladdii joogta ay warwareejisaa oo ay riixriixdaa waxaana runtii iminka soo baxaya dad dhalinyaro oo badan oo Soomaaliya oo qaata cilmiga carruurta
barashada carruurta qaata oo social studies ka dhigta marka kuwaas laftigoodu waxay naga caawin doonaan maadaama iyagii Soomaali yihiin inay bal soo ogaadaan halka mushkiladu ka xun tahay halkan aynu iska fahansanayn innaga iyo hay-adan carruurta ma garanaysaa daba socotaa halkiina iska fahansanayn inay ma garanaysaa inaynu isfahanno ayna sameeyaan baa ay dhici karta mustaqbalka waana runtii mustaqbal aad iyo aad u wanaagsan saan anigu arko arrintaana waanu ka shaqeynay sidaan mar horeba u yidhi xisbiga iyagu wuxuu taagan yahay sidii loo soo dhaweyn lahaa dadka ajaanibka Soomaaliduna ay ku jirto shaqooyin loo heli lahaa meelaha ay ku noolaadaan loo heli lahaa la fudaydin lahaa sidii shaqo u heli lahayn shaqada qofku markuu helana uu shaqada ku nagaan lahaa ma aha in shirkad yar mar la bilaabo dabadeedna shirkadii markiiba la iska heliyo oo ay iska burburto waa inay noqoto meel runtii qofkan hayn karta sanado badan ayaan runtii ayaan ka shaqeynaa ugu talagalay marka waana wax aan imika akhriyaya maaha wax campaign iyo waxaas ku jiro maaha sanadkii doorashada sanadkani waxa weeyaan wax runa oo aan anigu hayay baan idin sheegay sanadkan doorasho ma jirto 2025 ay doorashada dhici doontaa taasina maaha intii golaha deegaanka waa tii baarlamaanka ee madaxweynaha iyo baarlamaanka lagu dooranayo weeyaan taasi September insha Allah 2025 hadii la yiraahdo dhacaysa marka taana siyaasan ku soo koobi lahaa okay ka waran xilli baan wacyigelinta dhalinyarada halkan joogta haddii goor waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo suuqa tulan ama taagtaagan ama beera taagan oo ku jira shaqooyin qaldan maxaa loo qaban karaa maxaase laga qaban karaa arrimahooda maadaama ka dhawaaqsay shaqo abuurkii iyo wacyigelinta xusbigiinu inay meel fiican ay wax wanaagsan ka qaataan waa sax weeyaa Sadiq waa runtaa waxa weeyaan horta dhalinyaradu way soo bateen maadaama aynu wadankii ku soo badanay ilaa 44,000 oo Soomaaliya baa degan baa la yiraahdaa wadankeen Norway 44,000 boqolkiiba 50 waxay degan yihiin Oslo iyo ereyadeeda marka dadka degan Oslo iyo ereyadeeda waxa ku qiyaasay ilaa 22 way ka yaraan kartaa oo ka badnaan kartaa laakiin qiyaasaha waa taqriiban ugu dhawaanshiyo weeyaan ilaa intaas ayay sheegaan cilmi ahaanna maaha wax la iska yiri waa cilmi ahaan weeyaan marka statistics central bureau baa laga soo heli karaa meelo badan baa laga soo heli karaa waxaan ogaa ilaa 44 ayaan ahayn marka laba markaan u qaybiyo qayb ah 50% baa degan baa la yiraahdaa boqolkiiba 50 Oslo iyo agaarkiiba marka horta dhalinyaradii way soo bateen oo way ka bateen sidii hore dhalinyaradu mar haddii soo bataanna waxa loo baahan yahay dee horta waxay u baahan yihiin iskuulo waxay u baahan yihiin shaqooyin waxay u baahan yihiin meelo free kooda ay ku isticmaalaan ama ha tagaan activity ama waxyaabo kale ha qabtaane marka horta arrinta keenaysa in rasuushka yaraado anu waxaan qabaa horta inaynu soo fara badanay sida kale ajaanibkiiba iyaguna dee runtii carruurtooda iyaguna soo badanaysa marka pressure badan waxa fuulaya magaaladii baa fuulaya pressure badan innaga Soomaali ahaan haddaba maxay noo raacaa wasaad sheegtay Sadiiqay waxa jira dhalinyaro runtii u badan xaafadahan centerka ku yaala siba xaafadan Greenland la yiraahdo oo Soomaalidu ay ku badan tahay biidal ahaanba Soomaalidu ku badan tahay biidal gamla Oslo la yiraahdo tooyin iyo inta area waxa la isku biidal gamla Oslo marka biidal ahaan Soomaalidu way ku badan tahay dhalinyaradina mar haddii Soomaalidu ku badan dhalinyaradina way ku badnaanaysaa weeyaan marka dhalinyar kale oo ka timaada magaalada xaafado kale ayaa iyaguna jira oo runtii waxaaba qabaaba anigu kuwa degan Greenland iyo area in laga badan yahayba kuwa imanaya ka soo qayb galaya joogitaanka halkan Greenland Waterlands Brewe la yiraahdo bridge-ka hoostiisa taagan waxa laga yaabaa iyaga laftigoodu inay iyaguna ka yimaadaan xaafado kale iyo kuwii meesha joogay oo ishelay marka runtii sawirka ay bixinaysa marka samarka meesha marto runtii sawir qurux badan maaha imika waan dareemaa in waxooga activity wax laga qabqabto oo maalmahan maray meesha waxooga activity baa ka socday oo ay biidal ku sameysay niman dhalinyaro oo iyaguna waxaan arkay Soomaaliya oo iyaguna yara bilaabay waxyaabo yaryar oo doonaya ciyaaro iyo wax meesha inay ku sameeyaan
laakiin rasuushkoodu inuu daciif yahay baan malaynayaa meeshaa horta sawirkeedu ma qurux badnaa ilaa runtaa fiican sawirkeedu ma qurux badnaa dadka markaan saa u eegay 70% wax Soomaali weeyaan haddaanay kaba badnaynba waxaan u badan yihiin wiilal bay u badan yihiin gabdho way ku yar yihiin gabdho meesha taagan mar iyo dhif baad arkaysaa laakiin maalin walba waxaad meesha marto markastood meesha marto waxaad ku maraysaa wiilal baad ku maraysaa meesha inamaa taagan inamadaas runtii niman dhalinyaro ah waxaan ku qiyaasay ilaa 17 ilaa 25 inta u dhaxaysa waa waqtigu qofku dhalinyarada yahay ay u badan yihiin marka waxaan daraagiskii waxaan bay ku dhex jiraan baan siraanugu mushkilad baana haysata qof waliba suu ku soo galay ma garan karo waa qof waliba wuxuu leeyahay taariikh iyo history buu waxbaa meeshan kulli soo geliyay ama familigiisa isku dhacan ama isaguba ha doorto iskaga yimaado waxaan waa badankood inay family wanaagsan ka yimaadeen laakiin ay nasiib daro maanta ay halkaa taagan yihiin baan qabaa waxaan kaloo qabaa in aan sidii la rabay loo caawin carruurta ma qabaa dadka qaar waxay odhan doonaan oo idinku baaba dawladii maxaa u caawin weydeen dawladdu laftigeedu way marka hore biidalka ayaa meesha ka mas'uula marka labaadna oshka kommuna ka mas'uula marka dambe dawladda ka mas'uula dawladdu baa kala qayb marka dawladdu way leeyihiin dad isku daya inay caawiyaan maalin dhaxdaas waxaan arkayay ninka magaalada maayirka ka ahole booliis baan meesha kusoo daynaynaa oo booliis baa meesha la qoray anigu waxaan qabaa in dhalinyaradan lala fadhiisto baan qabaa dhalinyaradan jeelka in lagu la degdego ma wanaagsana haddii la xidho beritool haddana soo baxaya weliba waxaa la sheegay markay jeelka ka soo baxaan inay shaad libaaxda sii gashan yihiinoo ay qofkii uu wuxuu yeelanayaa magac dee kasii ballaaran kiisii hore oo hebel waa khatar wuxuu soo maray jeelku soo maray marka status waxaan la yidhaha buu helayaaba marka anugu laakiin waxaanu qabnaa aniga xisbigayguba runtii dadkan in horta marka hore waa in la sameeyo wax la yidhaha forabigana waa ka hortag weeyaan forabigana waa ka hortagga see loo sameynaya waxaa la joojinayaa xiriirka dadka cusub iyo dadkan hore sii joogay meesha oo inay recruitorinkoodii la baaro halkay ka soo qaadaan dhalinyarada waayo dhalinyaro cusub oo kusoo biiraysa arkaysaa marka halkay ka yimaadeen dhalinyaradan waayo dhalinyarada markii hore waxaan moogay mid iyaga ka mid unbaa soo jiiday marka in kuwa horta la joojiyaan qabnaa talabaad dadkan in loo sameeyo barnaamij waa muhiim ta saddexaad waxaan qabaa masaajidka iyo ururada iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed inta ay isu yimaadaan in iyaga laftigoodu ay arinta albaabka hore jabiyaan oo iyagu ay talaabada ugu horeysa qaadaan ka bacdi waxaan qabaa in la soo raaciyo biidalka iyo kumuunku ay oranayaan war dadkan meesha iyagoo voluntary wax ka qabanaya inaguna waa inaynu practical aynu baritaaro aynu bushkarayno la shaqeyno oo halkaa magaranaysa project weyn baa ka soo bixi kara laakiin wixii waxaa la rabaa wax ice breaker baa la yidhaha wixii jabin lahaa albaabka ugu horeeya ayaa la doonayaa oo halkaa jiiri lahaa baa la doonaya marka waa talada soo jeedinayo anigu ururada iyo jaaliyadaha jira ee ururada waaweyn iyo masaajidkeena waa inay wada tashadaan arrintaana dhalinyarada hoos aad iyo aad waa in arrintaa aad loo eego oo runtii waa mustaqbalkeeni weeyaan waxaan ku qiyaasay ugu yaraan haddaan yareeyaray ilaa 50 inoo dhalinyaro inay meeshan wareegayaan haddaan ka badnay dee 50 magaalada Oslo ka socda aad bay u badan tahay waanaynu garanaynaa dhalinyarada qof kastoo waraysto qof buu garanaya waa dhalinyaradeenni weeyaan wax samada ka soo dhacay maaha waa carruurtii Oslo oo halkaasun amrullah ku dhacay marka inaynu qof walba awareness noqono kuweena aynu haynana ilaalino intaan ilaalin karno ilaahay baa ilaaliyay halkana loo gurmado ayaan anigu soo jeedin lahaa anu kulli mar walba ka qayb qaadanaya wixii laga baahdo diyaar baan u ahay haddii la doonayo in urur ahaan waxaan jeedaa xisbi ahaan waxna loo weydiiyo waa la shaqeynaya dadka waa dee kala shaqeynaya sidii dadkan wax lagu sameyn lahaa laakiin aniga shakhsi saciidi waxa ma qaban karo been ma sheegin waxa weeyaan waa in aan helo dad weelkii wax lagu ururin lahaa waa in la helo dad isku xidhan waa in la helo dadkoo dhan inay isku xidhmaanna maaha oo waynu ognahay magaalada Oslo dee ururo kala jaajaada iyo gruubo kala jaajaada waxbaa jira laakiin intiisa soo raaci karaysa hadday soo raacdo masaajidkana ay la kaashato anigu waxaan qabaa halkan derbigan halkan inuu hortaagan inamadeenna yaryara halkan taagan yihiin
wayn jebin karnaa baan qabaa وطلع wanaagsan xildhibaan Saciid Amiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay annaguna waan kala qayb qaadanaynaa barnaamijkaas soo bandhigtay wacyigelinta loo sameynayo dhalinyarada in loo gurmado haddii mid iyo laba iyo saddexba la badbaadiyo waxa weeyaan inta kalena badbaadaysaa biidnillah aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waraysigaaga qiimaha leh qaybtii koobaad idinkaan isku soo xidhaynaa insha allah xildhibaan Saciid haddii ilaahay ka dhigo gubaabada iyo talada bixisanaad ku mahadsan tahay aad iyo aad baan ku salaamaya assalaamu calaykum